أصلاً وحكسو قنانا ديش ننعم الآن من المفردين ورقي الضمر ولا وذا شقينا لكن ضمرك الشغادو كوي ربط نايت ما مسنت هيتادو انت انا هاي ما من نورن dhaqanku ama labnimada iyo dhadignimadu xaga dhaqanka Soomaalida ujeeda cad oo qeexan bay lahayd oo sida jid la maraya waa gartay inantu waxay aaminsaneed inannimadeeda inankuna wuxuu aaminsanaa inannimadiisa waa gartay inantii waxa loo diyaariyay inay aqal yeelato oo ay marwo noqoto ka bacdina sodoh noqoto qiimaha la siiyay way ilaashanaysa marna may kaalinteeda seegin mugta waxay noqonaysaa qof kaalinteedii buuxisa oo ka soo baxda oo aan dhaliil-aan isxilqaamid buura ah oo buuxda inankuna sidaas oo kale ayaa inuu guri yeesho reerkiisa iyo danihiisa iyo tatolnimo iyo tabeelnimo siday tahay inuu uga soo baxo marka xeerka iyo nidaamka iyo dhaqanka la isku waafaqsan yahay ee si guud iyo si gooni la isku waafaqsan yahay wax la isla wada aqoonsan yahay oo aan su'aali ka taagnin bixin haddii xaalku caynka yahayna dadku waxay u wada arkayeen qof walba shaqadiisa inuu ka soo baxay qofka ka soo bixi waaya ayaa dhaliil lahaa laakiin ku baratay ma oolin marka waxaan odhan karnaa waa loo sinaa cidina cid ma dulmiyeen cidina cid kuma xaglineen laakiin waa dhaqan loo sinaa oo kaalmo kala lahaa marka xilka qofkani ama lab ha ahaade ama dhadig ha ahaade siduu uga soo baxo ayaa lagu qiimeyn jiray waa gartay waxa meesha taalla dhaqan ay iska lahaayeen oo qof kastiba hawl gaara uu lahaa oo hawshiisa hadduu ka soo bixi waayo qof ceebaysan uu ahaan jiray kii ka soo baxa hawshiisana nin qof waajibkiisii gutayba waa ku ammaanan ha kala badsadeen ha kala yaraysteen gabadhu ha dulmanaato nin baa wuxuu iga sheekeeyey marka raashinka la kariyo example weeyaan tusaale raashinka la kariyo raggaa looga gurayaa raggii ayaa loo soo dhigayaa inamadii baa ku xiga oo iyagana gooni wax loogu gurayaa maamadii iyo gabdhihii iyo dumarkii waa soo hadheen iyagoo weli xaggan ay fadhiyaan hambada nimankaasu dhaqan waxa ahaa inay soo hambeeyaan raashinka way ogyihiin dumarkii wax lama hadhin haday doonaan waxaa iman karta marti ku soo dhaxooda wixiiba la cuno oo la waayo hambo ay dumarkii cunaan gabadha gashaantida ama shabadda waxaa laga yaabaa in cuntada laga ilaalin jirayba oo la odhan jiray yaana calool weynaaninoo bogga iyo beerka saa isugu dhegi jiray oo haddaanay sidaa ahayn gabadh dee maba dee tilmaamaa ku soo bixi jiray in qaarkood odhan jireen digsigii ay wax ku karisay ama dherigii ayay xagtiisa iyo xoogaa yar baa loogu reegaa halkaasay murdistaayo xagataayo meelahaasay ku hadhaa marka loo eego wadcigan maanta jooga oo loo orko gabadhaasu nolosha nooca ay ku noolayd xitaa caanaha wax yaroy ka bato meelahaas inta loo buuxiyo koob intay meel la fadhiisto qac kama siinin waxaa la yidhi waa gabadh weeyaan siday wax leedahay gabadhaas yacni dulmiga su-aashaan weydiina waxaa leeyahay yacni qofkii dumar abeen gabadha nafteedu arrintaa haddii aad tirahdeen shaqadeedii bay ahayd waajib saaraa bay ka soo baxday xagga cuntadana ma ku saaray horta waxaa la yidhaahdaa guud ahaan nolosha shalay wixii jiray sidaasuu sax ku ahaa laakiin maanta marka loo eego shalay qalad bay gelisa marka dib loo eego markaa shaygu in lagu qiyaaso lagu qiimeeyo waqtigiis u jiray oo waxaan dhaqanka la yidhaha marka laga hadlaayo waa wax bulsha isla ogoshahay oo waqti isla bedelay shalay siday ahayd maanta ma ahaanayso berri si kaley noqon doonta
markaa waa wax isbedelayo aan meel taagnayn isbedelkaasina waa mid la socda waktiga arrinkan aad ka dhawaajisay ee xagga cuntada matalan tusaale haddaan ku siiyo dumarku inay cuntadii kariyaan oo ay diyaariyaan raggana cuntadii loo dhigo oo ay cunaan waxa ahayd xeer iyo wax laisla ogyahay reer baa rag baa soo martiyey cuntadii baa loo soo diyaariyey markii loo soo diyaariyey baa loo dhigay raggii dhaqanka waxaa ka mid ahaa raggu markay weelka ay cuntada cunaan ee ay gabdhaha u yeedhaan leen weelkii hala qaado way qufici jireen micnihii waa cunnay weelka waa diyaar soo naga gura waxa dhacday markaa maalintaa reerkaa markii ay cuntadii gabadhii u soo dhigtay nin ka mida raggii ayaa hargabhay markii un la bilaabay nin baa qufacay gabadhii ordaysaa timid waxay tidhi malaha waan idku soo degdegay maya baa layidhi qaad haddee si dhaqanka loo ilaalinayo waa qufacay ninkii ha waa kaale oo naga qaad ilaalinta dhaqanka iyo kaalinta qofku leeyahay wixii xeer la isla ogyahay inuu sidiisa yahay markaa qofna qof ma dulmiyeen qofna qof kuma xadgudbeen taasi waa mid waa gartay halka waa ku qadeen odayaasha habeenka haade laakiin waa dhaqankii baa sidaas ceeb bay noqonaysaa haddaad intii oo soo gasho la yidhaahdo mahay waad lagu soo degta la yidhahdo weli yani dhaqan qaad baa iyana waa naxdo hartay cuntadoo sideedii cuntadoo sideedii mar hadday soo gashay inantii waa inay qaataan weelkii marka raggii gacmahay dib u laabteen marka taasi waa gartay haddii tukaloo dheer aan kuugu daro oo aan kuu balballaadhiyo raggii iyo dumarkii xilal iyo hawlay kala leeyihiin markaa raggii markay hawshaa qabtaan hawlaha ay qabanayaan waxay noqonaysaa hawshaa inaanay dumarkii qaban karayn ama kaalinta aanay ka soo bixi karayn dumarkii taageeray ku siinay ragguna sidaasoo kale waxaa jira hawlo aanay qaban karayn oo dumarku kaga fiican yihiin dumarkaa loo deynaya qof walba qaybtiisii tusaalaan ku siinaya dheer oo wakti qaadanaya waktiguna ku yaryahay waayahay odayaasha soomaalidu odayaal aada u caqli badan bay ahay maasha allah dhaxal badan ka tegey raad fiican oo badan reebay waxaa ka mid a miyiga waxay ahayd dowlad nidaamkeygii dhaqankeygii sharciyadeedii xeerarkeygii faylasheedii le oo wax qorana aanu jirin aada iyo haddee si loo xasuusto marka ay odayaasha reerku ama beeshu cid kasta oo wax kala tirsanaysa markay u gar qaadayaan ee geedka lasoo fadhiisto oo qof arrin sheeganayo ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama qof yaraade ama qof weyn ha ahaade inay ilaalin jireen nidaamka deetana xaqa soori jireen waxay odhan jireen erayo waxay soo saareen laba u socdo xasuusa waxaa ka mid oo yidhaahdeen ma dhulbaa hadday marka kiiskii la keeno mise waa dhaqan wax alla waxa kiis oo dhan labadaasu ka bilaabma labadaa mid buu noqonaya hadduu noqdo dhul wuxuu usii kala baxaya ya ma dhiigba ma qoomba haddee ma naf baxdayba oo yani ma qur baa gooday mise waa qood ma qof la dilay oo kooba mise waa qof naburo ku yaalaan oo dhaawac si xaqii loo eego aada iyo aad hadduu dhul yahay hadduu yahay dhaqan waa wax ku saabsan ma xilaa ma xoola haddee waxaan uga jeeda halkaa marka xilihii waa dumar cadaaladoodii in la ilaaliyo intaa miyaa la furay dabeetana xaqaygii miyaa la duudsiyey waa in loo makaransa maya waa barnaamij aada u ballaadhan markaa yani ogow yani inay ahaayeen odayaal cadaalada haddii xoolo laysku qabsado xoolahaasi ma xoolo baadiya ma xoolo lasoo dhacayba ma xoolo xero ku jiro xaq muxuu ahaa loo xaq soorayo oo loo kala saarayo oo laysku haysta sidaas oo ahay niman caadila oo wanaagsan oo dowlad buura ah markaa cadaalad xaggooga koobay ka ahay dowlad bay halkaa ka ahaayeen waayo wax kasta maxkamado ma tegi jirin iyagaasu maxkamad ahaa waa barnaamij keligii u baahan in gooni loo falanqeeyo oo yani aada iyo aada u culus oo miisaankiisa leh haddii maanta markaan idhahno odaygii sidaa u soo dadaalay
xaaskiisiiba xadgudub ku sameeyey sidee bay beelaha usoo hogaamiyey ayay Waa su-aal baa sidaas. imanaysa okay dhaqanka dadkeennii hore ee soo jireenka ahaa aanu ka soo sheekeynay xoolo dhaqatadii reer guuraaga ahaa iyo shaqooyinkay qaban jireen oo beeralaydiina ay ka mid tahay oo iyaguna ay gooni yihiin oo kalluumaysatadii ay ka mid tahay waxyaabaha soo jireenka ahaa oo aynu lahayn ee quruxda badnaa ee xeerarka kale lahaa ee maxay ahayd tooy qofta dumari shaqo gaara ay lahayd ha badnaato ha yaraato ha ku dulmanaato laakiin waajib saaran oo la rabo inay ka soo baxdo uu ahaa oo aan lagu ceebsanayn oo aan loogu garaabayn haddana isbedeladaas waxaas ay soo mareen marka loo qiimeeyo weli reer guuraa baynu nahay xoolo dhaqataynu weli nahay weli dhulkii waynu jiraa kii waagaa jiray aynu hadda ka hadlaynay iyo kan maanta jooga xoolo dhaqatada maanta waayo markaynu guurayna xitaa xoolo dhaqatadeenu iyo marka yacni ay meel ka hayaamayaan oo meel kala aadayaan oo meeshoodii jiilaal ka dhaco meel naqli ay u guurayaan waxay adeegsan jireen awrta oo ay ku guuri jireen oo dee aqalkooda iyo caruurta iyo wax kasta ay ku raran jireen dhaqankaas aynu lahayn oo caanka aynu ku ahayn marka loo qiimeeyo kuwan maanta jooga ee xoola dhaqatada ah reer miyiga ah beeralayda ah kalluumaysatada leh wixii hore oo dhan marka aada ogeyd waxay ahaayeen iyo siday u dhaqnaayeen maanta kuwa jooga isbeddel ma ku dhacay mise sidoodii hore bay weli ku qiimaysan yihiin oo siday shaqada u kala lahaayeen iyo wixii ay qaban jireen iyo shaqadii ay ku jiri jireen waxba iskama bedelinoo hawsha waa sideedii mise waxba isbedelay cabdi yuusuf horta waxa waaye waxna goobjoog aad u ahaa jirtay waxna markaad kasoo tacday muufo iyo aada baratay oo magaalo soo gashay gadaashaadadaa ku dhaqmayo waa gartay dhaqankii horo iyo kan hadda ah horta raggii magaalo usoo batay waa gartay dadkii miyiga joogay nin uun xoolo badan lahaayo mooye inta kalentood waa soo hadaaftay waa kasoo dhuumatay anaa kow ka ahay inta kasoo dhuuntay adaa kow ka ah inta kasoo dhuumatay aniga magaalada jowhara layga soo qoray ciidamada waa gartay marka maalinkaas lo-aa laygu halayahay waana kasoo dhuuntay marka horta in lasoo wada dhuuntayaan qiyaasa waa gartay aniga jaamacad oo kama soo bixin oo sidii profesorka oo kalentood aniga jaamacad oo waxaa kasoo baxay oo waxaan kasoo baxay waayo aragnimo ah macnaha markii aan fiiriyo dhaqankii hore iyo kan hadda dhalinyaradii oo iga dambaysiyo dadka sinjigayga ay ku dhaqmo hayaan inay kala bedelantaan u haystaa waa gartay maxaa yeelay dhe shaah lama aqaanin ma waagi hore hadda subaxi shaah haddaan la cabin waxa waaye kala gur waa cidda waa gartay nin baan shaah lahayn oon shaah gadi karin oo xoolo badan lahaynna miyi kuma noolaa kara hadda oo gabadhu sidii maantii hore ay caanaheeda iska cabaysa ma ah waa gartay waxaad ogahaysaa ritigii 4 tahaan iyo shawga la saari jiray 4 caagaa la saaro waaya haanti waa la waayay haanti waa la waayay marka dhaqankii inuu isbedelay waa muuqataa waxaase la yiri naago inay dhibley tahay ninkii dhabar u dhintaa og inay dheefsi leedahay ninkay dhaan ka reebtaa og geelu inuu dhiblow yahay ninkii dhabar ilaalshaa og inuu dheefsi leeyahay ninkii dhaay ka maalaa og macnaha waxa waaye dadkii hore iyo dadkan oo hadda miyiga ku nool waa dad miyiga ku noolaay macawisay qaada jireen go-ay qaada jireen saasay ku soco jireen xoolahooday ilaasha jireen hadda kii miyiga surwaal u wataa waa gartay wuxuu igu yiri nin lo leeyahay oo mataqaana aan qaraabo ahayn
wuxuu arkay isagoo sarwaal iyo shaati iyo kaba saandala allahaan arkay markaasaan arey hoos guntiya iyo waxaasaa la qaanada jiray lo-so waa ilaalisaa xaa kugu wata surwaalkan iyo saandalahan iyo waxaan salab rag waa surwaal iyo shaaro uu yidhi iyo suunya kaba saandala waa ii jawaabiyaba waaba iigu meeshooba iigu celiyay salab rag waa surwaal iyo shaar iyo suunya kaba saandala kulaha marka inuu dhaqanka isbedelay shaki kuma jiro taasaad ku ogahaysaa xasan maxaa minuu xagiina weli iska bedelin unugu xagayna waa iska xasan baan wareysanaya halkan waxaan ku eegayaa dhaqan baynu daba soconeeyo dhaqan uma madax bannaanta waa su-aal mise waa lagu arrimiyeyo ma aadan ihid kanaynu ka sheekaynayno ko nolosha tani jid dheer bay soo martay su-aal salab rag waa su-aal ninka halka arrinta laga sheekaynayo salabka raggu shalay bay ahayd oo wuxuu ahaa mare maxamuudiya makaawi ninkii gabadha u heesayay makaawi yarey maka haddaan tago makaawi makaaga keena shayga waa ka ninka layamataan ciideed ninka hadlaya umarada ka furtay ma makaawigaygaan garduur lala mushaaxaynin mamataanka xidhan baan dartii loogu mari waayey shay qiimo leh makaawi baa ahayd macawista tan iyo shaalka kan iyo noloshii baa soconaysa isbedel yimi waxaase meesha ku jira saddex wax baan waa tii uu saaxiibkay kayd uu labalabaynayey labalabayntaasi dan baa laga yeeshay hadalkaay kaydisaa waa si aynu waayeelkeennii hore ka barannayoo wuxuu marka uu ridam leeyahay ama isu ekaan erey leeyahay ama xarafraac leeyahay xusuustu raad ku yeesha hadda waxaan ka dhigayaa saddex bay noloshu ka abuurmaysa biyadda aan ka hadlay waa gartay wax la huwado iyo hoy oo ah meel la galo iyo hunguri oo ah wax la laqo afkan baynu nidhaahnaa haddana marka aynu nidhaa ummadaasi afkeebay ku adashaa waxa weeye dan kaleaynu ka lenahay waa language bay markaa noqonaysa hungurigaan u jeedaa maaha kan anatomicalka halkana maaha waa waxa la cuno wey wax la cuno wey hu iyo hoy iyo hunguri saddexdaa ha-ood ummaddu maray iyadu isu hayso gacanta isugu haysay oo aanay meel looga imanayn baa jiray xornimadu markaasay joogtay marka markaasaa waxaa jirtay xitaa iyo cid xukumayso intay dibadda ka soo eegto dhaqankeeda ku odhanaysa talow miyaa la isku tacadiyo hebel baa hawsha lagu badiyey ma labkaa lagu badiyey ma dhadigaa lagu badiyey waxaan oo dhammi waa markii ummadda xorriyadeeda gacanteedii laga saaray wey marka waxa ay tahay ummaddu saddexdaa ha-oodun baan ku soo koobaya ee hooy ay leedahay bay ku jirtay oo kii aynu ka soo sheekaynay hu ay leedahay bay xidhnayd oo ilaa iyo markii laga keenayey kabta saanta laga tolaayey sarta gelisadeed xaashadlaha saanac kala joojay xitaa farshaxanka iyo quruxda kabta aad iyo aad jeedalka faraska lagu dhufanayaa nadiga buu ka yimi qaloonka dibiyada laga soo siibayay markaas harag lagu rogaayay kabta jaantaasaa laga samaynayay mar bay ahayd marba markii ka sii horreysay baa xorriyaddu ka sii badnayd iyo madax bannaanideenu mar baa dharkeennu dhuu ahaayo haragga loo gaato uu ahaa haragga riyaha oo liilsama dabadeedna shucuubyada loo yeelo marka maalinba ilaa aylan iyo meel cidlaa kumaynaan xidhini waa laynagu soo siqaayey hungurigeennu wuxuu ahaa cad iyo caano geel iyo in kaleeto oo la yidhaahdo arah oo fara badan oo midhaha ilaahay duurka ku abuuraya oo qaarkood kaydsamaan marka ummaddani hugeeda iyo hoygeeda iyo hungurigeeda isugu filayd madax bannaaniduna markaasay taagnayd markaas haddaynu halkaa ku noqonayno meeshaynu xugmaynaa meeshaa yahay waan garan karaa waxaan ka idhaahdo laakiin marka kan gacanta la isku dhigay ee qofka New York jooga qofka xarag dheere jooga baahida lala wadaajiyey dadku waa inagu kale waa la kala xoog roonaaday cellphone buu doonayaa mid soo dhaca buu doonayaa markuu aroortii kacmidu ismariyuu doonayaa waa la isu xoog sheegtay saan baan oranay dhaqanka aynu ka sheekaynaynay hore oo u jiray mid ka duwan baa maanta jira oo gacan ku samaysa
oo aanay xorriyadeedii iyagu aanay ku keenin ma dooranin markay wax soo saari waayeen baahidii bay dunida la wadaageen baahidii bay dunida la wadaageen xataa iyo hadda beeyadii halkaas u socotay waxaan u maleeyaa inay ahayd maxaa iska bedelay reerkii baadiyaha deganaa reerkii baadiyaha deganaa maalintii koowaad xeedhadii baa laga kala jebiyey saxan baa loo keenay maalintii ku xigtayna qarbadkii uu biyaha ku dhaamanayay ama jalxadii baa dhulka lagu dhuftayoo haambira baa loo keenay markii ka dambaysayna hadhuubkii baa la tuuray caagad baa la keenay markii hadhuubkii la tuuray maraqii xitaa geela naasaha lagaga marayey maraa loo geliyey yacni sibraarkii maxaa lagu bedelay sibraarkii caagado afarqaada oo adyaabay sidoo aan gudaheeda cid culi karin oo la arki karin oo wuxuun lagu shubo laakiin weligeed gudaheeda la soo taabanin marka waxa weeye dadkii waxaasaa dhulkii ka dhacay awrkii waa la dhigay reerku waxay leeyihiin si aanu u guuro reeraha u raacno gaadhiha naloo soo diro gaadiidkii lagu dhaansanayay biyaha keenayay la daah iminka maalinba sibay sii noqonaysaa hog baa la jeexayo biyaha wax lagu shubaa bac baa lagu shubaa bac baa biyaha kaydisa weelkii wax lagu qaadan jiray reerku isagoo xitaa wax laga yaabaa ayaadho markay magaalada u socda caanaha keenayaan inay baca kusoo shubaan baa laga yaabaa waaba haddaaba lagu qaadaaba dhulkan soo maray marka isbedelka intaa leeg baa dhacay cismaano isbedel weyn weeye laba kelmadood ku dar aniga hadal kale ku naga maayo horta dhaqankii oo hore iyo halka hadda waxa waaye kan hadda iimaankii xoogaa qalqiil galay marka iimaanka allaha na geliyaan kusoo koobay aniga shakhsi ahaantay iimaanka allaha na geliyo haddaan in yar kusoo koobo horta intaa la sheegay wey warka guud ahaantii laakiin haddaan soo yar kooboon tilmaameed cad ka bixiyo berigii hore oo dhaqanka miyiga dhulku wuxuu ahaa barwaaqo midho iyo qadhaa badan buu lahaa qof waliba wuu dheragsanaa baahi iyo gaajo ma jirin waa garta qof walbana waxa soo gala iyo waxa uu haysto iyo waxa reerihiisa ka helaya way ku filayd waa ku filayd dadku waxay u arki jireen berigaa xitaa wax kale iska dhaafay markaan anu yaraa markaan dib u xasuustay iminka marka ruushka iyo shiinuhu ruushka iyo maraykanku ay shirayaan waxay u arki jireen inay gaajoonayaan ruushka iyo maraykanku oo neefkaa macasha weyn leh loo tashano ayay u arki jireen qaniimadda niyadda kaga jirta iyo iimaanka qabeen oo aada u xoog badna adduunyadii wayse soo bedeshay dhulkii waxaa ku dhacay xaaluf oo tiradii baa badatay xoolihii baa batay dhulkii waa la xaalufiyey sidaasi leeg ayaa dhaqankii dadka ayaa sida huga ugu dhammaaday loo u jeexjeexmo ayaa dhaqankii u araday oo u jeexjeexmay oo u dilaacay oo u isku bedelay oo iminka meelaha miyiga meelaha qaar waxa la yidhaahdaa marka dumarku iyo caruurta ay tiriyaan xoolaha ee neef maqan yahay waxaa la yidhaha aabbaa qaatay aabbihii magaaluu tegay u qaylaya wax kaloo soo galay mahayo waa u neef qaata isbedel baa dhacay odaygii waa qaylaa tegaya waa reer magaalo baahidii jirtayna intii hore way ka korodhayoo berigii hore deegaanka inta wixii laga helaa lagu ekaa maanta magaalada waxa yaala waa in miyigii laga helaa dakhli kale iyo dhaqaale kale oo soo gelaya ma jiro oo xoolaha dhimashoodii way ku korodhay xoolaha tiradoodii way ku yaraatay dadkii wuu ku batay duruufo gooniya ayaa haysta miyigii suuga lagu samaysanaya markaa sidaa dadku dhulkii u xaalufay oo hugii u araday ayaa dhaqankiina u xaalufay oo u araday markaa wuxuunbaa ka sii dhacaya dhaqankiina xagga miyiga uu sii baaba'aya ayaan dhow waxay noqon doontaa in laga sheekayn doono beri baa sidaasi jirta cabdi kelmad baa ku daraysa horta 4 haanoo biyo ah 4 maalmood lagu qatimi jiray waxaraha yaryarkaana biyo laga sii jiray waa garta haddana fuusto biyaha kuma aado dadka miyiga jooga hal maalin kuma filna haddaan been sheegayno odayaal kale waayeen oo ilaa fidaha joogo aniga hadda inaan usana weynahay maahine idinkama yari waxaan idin caddeeyahaa 4 haan oo biyo ah inaan 4 maalmood lagu qatimi jiray waxarahana biyo laga sii jiray haddana fuusto biyaa cidda ku aadin halka maalin waa maasantii waxaa jira waa iska soo gabagabaysanaynaa horta cidda cabanaysaa keligeen ma
waa gartay dunida tan afrikada inaga inoo eg afrika waxaa yaalay dhaqan reer guri baa yaalay oo ay iyadu leedahay waa lagu soo duulay waa loo yimi waa la qabsaday miqyaaskeedii iyo muxuu ahaaye halbeegeedii baa la jebiyey halbeeg cusub baa loo sameeyey xaragada sibaa loo baray cadaaladda sibaa loogu sheegay wax soo saarka sibaa loogu sheegay waxaan oo dhammi waa counter productive waa wax ka yimi wixii la sameeyey ereyga ugbaad waa taqaan ugbaad dadku wax la moodayaa wax la yidhaha reer guuraa baynu ahay oo maxaynu u guurayn ma ahayn inaynu abaar qura u guurayn ugbaadka waxaa la yidhaahdaa dhulka meesha lagu raago oo diqda noqota ee xooluhu joogaan inta laga diga rogaa la kaxayn jiray loo odhan jiray inaga rada halka kan ha ugbaado ugbaadkaa dabadii baa lagu soo noqon jiray iyadoo dulankii iyo wixii ka dilaaci lahaa ay ka dhinteen marka dadku wuxuu ku noolaa nolol uu leeyahay hadda waa la magaaleeyey waa la ugbaadiyey waa ugbaadaysaa dambe ma jiro dadku magaaladuu soo agdegayaa wuxuu rabaa eedaadka kan iyo qaadka kan iyo suugada tan iyo baarafiyumka kan iyo shuqulka kan cusub buu rabaa waxaa oo dhammee shay walba waa shay meel kale ka yimi dabadeedna waxa weeye afrikada cabanaysa ba inaguna qayb kana afrikadu hadda waxay ku baraarugtay meel ay joogtaba laloo yimi dabadeedna si kale wax naloo bariyey hadda dadka iyagii baa wax bartaye markii aanu ku noqon lahayn nolol aanu falsafadeeda ka keenay bulshadayada dhexdeeda oona anfici karta oona qabatimi karta oo aanan qariib ku ahayn baa la gaadhay aanu baahi u qabnaa innaguna taasaynu baahi u qabnaa waxa aan qabaa noloshii waa la ugbaadin karaa laakiin tacab weyn oo aan cayaar ahayn bay u baahan tahay kan ay hadda inaga maanta galabta tan waajibku way nagu soconaya oo islaamahan iyo odayaasha tan siidarinta fadhida wixii madaxooda ku jiray in kayd laga reebo aad iyo aad baa waajibku ka bilaabanaya dabadeedna hawl la isku kaashado oo ummadi ku dareerto gacanta la isu qabsado oo dee aan iska hadal iyo allow iga gey ahayn waqti dheer la daba taagnaadaba meesha tan kusoo jirta saasaan qabaan maya waa waajib dadka oo dhan iyo cid kastoo wax garanaysa waajib saaran weeye isbeddelkanu inuu dhacay oo aad iyo aad u saameeyey ayaa muuqata dadkeennii xoolo dhaqatada ahaa ee miyiga ku nooleed iyo beeraleydii iyo wixii oo dhani ay magaalo soo wada galeen kuwii magaalooyinka ku jiray taasoo loo sababeynayo abaarihii badnaa isdaba joogga ah ee dhacay dagaaladii 30 sano soo socday saameyn aad iyo aad u laxaad labay ku yeesheen xoolo dhaqatadii beeraleydii kalluumaysatadii dhammaan way isbedeleen waxa aan tusaale u bixinayaa nin odaya ayaa anigoo magaalo jooga magaalo xoolo aada ugu badan yihiin markaas ayaa nin bay soo ag fadhiistay waa nin odaya waan ku qiyaasay ilaa iyo 70 iyo xooga 75 aduu 74 ilaa 70 ilaa 75 inta u dhaxaysa ku qiyaasay odaygu aad buu dayacan yahay diif baa ka muuqata calal buu gashan yahay odayga agtaydu soo fadhiisay shaah baan dalbaday waan cabaayey saasaan u eegay waxaan arkay odaygan yaro tabaalaysan agtayda fadhiya markaasaan idhi asalaamu calaykum wacalaykum assalaam arshaah ma cabaysa haddaad ii shubaysid buu yidhi laa ilaaha illa marka shaah baan ugu yeedhay miiska labadayada fadhina meeshan oo dhan oo lagu sheekaysanaya waxaan ku yidhi ii warrano waa fiicanay nabadoo miyi baan ka timi yidhi ha miyi baan ka imi magaalada ciidima kuu joogtahay oo gabadhaan dhalay baa lagu qabaa oo gabadhaad dhashay baa lagu qabaa magaalada haa hayeeyaa kaloo kuu jooga wiil yar oo aan dhalayna way haysaayoo iskuul ku dhigtaa oo xoolo miyi ma leedahay haa buu yidhi intee baad leedahay geeli wuxuu igu sheegay 70 iyo xooga allahu akbar adhigiina wuxuu yidhi adhigu 2 bahood weeyaanoo
bahina 200 iyo xoogaa bay leedahay bahina ilaa 300 oo ku dhow waa 2 bahood ya waxaa jirtay markaas abaar aad dadku ay biyo la'aan ay dhacday xoolaha booyad baa u soo dhaamisa xoolaha markay ka guurayaan meel ay ku abaaroodo meel naqle oo roob ka dayaadayaan gaari baa rara oo ariga lagu raraa waayo dhowr casho ma soconayaan hadda gaadiid baa jira ninka gaadiid kale ka booyada leh 3 neef buu ka qaataa marka uu biyaha u waraabiyo 3 neefna waa ku raraa ka raraya 3 neef buu ku raraa neefna way u qalaan kan biyaha u keenay xoolaha u waraabiyay maalinta marka gugu doo oo xoolo ay soo xooga roonaadaan 3 neef ayuu ka soo doonanaya neefna meesha bay ugu qaleen waa 4 neef odaygiiba waxaan siri hawsha intaa la eg siduu uga baxa waxaan ku yidhi marka aad guuraysaan 3 neef saad ka yeeshaan wuxuu yidhi gaari aan leenahay baan ku guuraa oo idinkaa leh annagaa leh oo xagaad ka keentay wuxuu yidhi gabadhaan dhashay oo Sweden degan baa noo gaday markaad xoolaha waraabinaysaanna booyad baan leenahay oo booyadana sidaad ku hesheen wiilaan dhalay oo Mareykanka degan baa noo gaday waa nin taajiraad ka sheekaysa waa ninkii aan arkayo weeyaan oo dharka waxaan ku yidhi guri ma leedahay may ma kula taliyaa baan idhi wuxuu yidhi haa waxaan ku yidhi 2 bahood ba aad kuwa 260 ka haysta 100 ka soo soc baan idhi 160 u reeb 160 kaas way tarmayaan iyagana hawsha ka yaraanaysa 100 ka seelada geeyo soo gad xooluhu waa qaali 50 ku xaraashada doontid 60 ku xaraash ta kalena inta in la ka soo xaraash min 100 ka soo qad 200 ee neef xaraash geela qaalintu waxay joogtay 1,200 kun iyo xooga waxaan ku yidhi geelaas dhowr iyo 70 soddon seelada soo dhigo $30,000 maanta adagu qanisan adduunka waxaad kaga nooshahayna waad aragtaa hay cayrayn buu yiri hay cayrayn kuu qoslay qosol kuu qoslayba anigu ku qoslay cabaar dhan buu qoslay wuxuu talo fiican baad ii sheegtay buu yidhi laakiin haddiiba aan isku dayo buu isku dayi maayo buu yidhi haddiiba aan isku dayo kuwii aan qabay iyo kuwan dhalay baa intay xidhxidhaan geed igu qabanayeen waa waashay halla qabto anoo xidhxidhan baa laii keenaya buu yidhi ba halka lii keenayo irbadaha lagu mudo walaanunu yeelayn buu yidhi heerkaas eeg yacni xoolihii odaygii magaalada 5 sanaan deganaa waan wareystay abaarihii kadib 4 sano kadib baan wareystay wixii xoolaha waxa uga soo doogay geelii 70% 30 baa ka dhintay 100%. Adhigii 60% baa ka dhintay. iyagoo cayda baa la sheegay wax yar u soo doogeenoo xaalad xaal ay ku jiraan. qofku yani xoolo dhaqatadu haddii ay isku dayi lahayd inay ka faa'iideystaan xoolahooda oo markii ay in gaadhaanba ay gadaan oo isana ay inta kale ay dhaqaan wuxuunbay waayo xoolo dhaqato ma nihine xoolo raacatanu nahay xoolaha waynu raacnaa waa daba soconnaa iyaganu daba joognaa adeegoodii baynu daba joognaa laakiin waxayna ka maqan caalamka kale waxa uu ku nool yahay waa zero meel uma guuraan halkooday fadhiyaan biyihii bay u qodayaan innaga dhaqaalihii bayna ka maqan marka ilaa aynu noqono xoolo dhaqato degan isbedelkaas ma dhacayo laakiin waxa dhacday in isbedel weyn ku yimid dhaqankeennii reer guuraaga ahaa magaaladii dhaqankii isbedelay dhaqan shisheeye baynu la qabsanay kuwii magaaladu kuwiina reer miyigu dhaqankii magaalada la qabsadeen kuwii magaaladu dhaqankii shisheeye la qabsadeen aaladahan cusub aynu yimi wax badan baynu ka bedelay waad u jeedaan maanta Mareykan baynu joognaa dhaqankii suubana ay inagu lahayn ee Soomaali ahaan lagu yaqiinay mid aan ahayn bay dhalinteenu ku milantay
waxyaabaha weeye waxa aynu rabno in aad wax ka qabataan inta kalena aad gaadhsiisaan oo dhaqankii aynu soo cusboonaysiino caruurteennana ka qabanno dhaqamada shisheeye ay ku milmayaan insha allahu biidni illaah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida aad wakhtigiina ugu soo hurteen maanta iyadoo aanay noqonaynin markii ugu horreysay oo halkaa aynu ka sii wadi doono oo maalinba wixii inoo muuqda insha allahu biidni illaah aan la wadaagi doono bulshadeenna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Waad mahadsantahay. boqolkiiba boqol